Turkiga oo si rasmi ah ugu eedeeyay Imaaraadka Carabta in ay taageeraan Al-Shabaab. Turkiga ayaa ugu baaqay dowladda Imaaraadka Carabta in ay joojiso siyaasadeeda cadaawadda ay ku dheehan tahay ee ku wajahan Ankara, isla markaana ay aqoonsato mas'uuliyaddeeda. Bayaan ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Imaaraadka Carabta iyo Xiriirka Caalamiga waa laba wajiilanimo siyaasadeed oo uu muujinayo dal taageero siinayo kooxo afgembi raadinaya. Waxaa sidaas yiri afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkiga, Hami Aksoy. Waxa uu sheegay in hadalka ka soo yeeray Imaaraadka Carabta ee ah in Ankara ay faragelin ku hayso siyaasadda Carabta uu yahay mid aan sal iyo raad lahayn. Waxa uuna sheegay in Turkiga ay sii wadi doonto inay dalalka kale ku taageerto si sharciyad iyo xal siyaasadeed leh. Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkiga, Hami Aksoy, ayaa sidoo kale ku eedeeyay Imaaraadka Carabta in ay taageeraan kooxda Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya, sidoo kalena ay xasilooni darro ka wadaan dalal kale. Ma aha wax qarsoon in Imaaraadka Carabta ay muddo taageeraan ururo argagixiso, gaar ahaan kooxda Al-Shabaab iyo kooxda gooni ugoosadka ee Yemen, ayuu yiri. Waa markii ugu horeysay ee dowladda Turkiga ay si rasmi ah oo shaacsan ugu eedeyso Imaaraadka Carabta inay taageeraan kooxda Al-Shabaab. Xiisadda Turkiga iyo Imaaraadka u dhaxaysa ayaa dhowaanahan sare ugu sii kacaysay dalka Liibiya, halkaas oo ay Ankara taageerto dowladda la aqoonsan yahay ee dalkaasi, halka ay Imaaraadkuna taageeraan generaalka fallaagada ah ee Khalifa Haftar ee doonaya in uu rido dowladda la aqoonsan yahay. Muddo sanado ah waxa ay Imaaraadka hub, qalab militari iyo taageero calooshood u shaqaystayaal siinayeen kuwa afgembiga qorsheynaya ee Liibiya, ayuu yiri Master Aksoy. Ankara ayaa marar badan ugu baaqday quwadaha caalamka inay joojiyaan taageerada maleeshiyada Haftar. Halkaad nagala socoteen waa Qowl Media TV. Si aad u hesho warar ku saleysan xaqiiqda, subscribe saar channelka Qowl Media TV, gambaleelka furo, lana wadaag asxaabtaada. Waad ku mahadsantahay daawashadaada.